ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد walaalyaal kusoo dhawaada daaci show waa jawaab ku wajahan darabkii ay soo gudbiyeen Soomaalidii iska soo aruursatay Yurub oo ay kaniisada isu keentay kuwaas oo u soo gudbiyay ummadda Soomaaliyeed darab iyo waliba dacwo ay rabaan inay u gudbiyaan ee Ahmed ay qaateen Soomaali iyo Masiixiyad ma ahan wax la filayay ha yeeshee waxaad moodaa mid ay kaniisadu in badan ka shaqaynaysay sidii ay u heli lahayd dadkan oo kale iyo sidii ay ummadda Soomaaliyeed fariin ay ugu gudbin lahaayeen dhowr iyo 20 sano oo qabyaalad qax iyo qurbo ku noolaan ah kadib kaniisadii waxay soo bandhigtay mirihii uga soo go'ay dadaalkii dheeraa ee ay gelisay dadka Soomaaliyeed dal iyo dibadba kaas oo ah fariinta uu fiidiyogan xambaarsan yahay waxaan ahay nin Soomaaliyeed oo Masiixi ah ama Christian sida uu taqaan waxaan idin leeyahay idin ka codsanayaa Rabbiga idinka baryayaa inaad Masiixa u timaadaan Masiixa soo raacdaan hatta dad Bible-kun akhrido adigoon qalbigaaga furnayn waad arki doontaa waxaan ku hadlayno Rabbi idin soo hadeeyo oo kale Masiixa aad badbaadaan noo raaca jannada waa mahadsantiin Masiixa waa badbaadada waa nolosha waa iftiinka wadada kaliya oo nolosha waligeed aad ku heli kartid Rabbiga kale annaguna waxaan ugu jawaab celinaynaa kow Bible-ka ay noogu yeerayaan ma yahay kitaab Allah subhanahu wa ta'ala loo tiirin karo mudanna in dadka loogu yeero akhrintiisa iyo raacitaankiisa laba iyo waxa Qur'aanka Kariimka ah ka yiri Kirishtaanka iyo guud ahaan ahli kitaabka saddex iyo xaaladda taagan ee diimaha kala gedisan ee caalamka marka horese waxaan leeyahay qof kaste oo Soomaaliyeed oo yimid qurbaha ama galbeedka diintiisu waxay ku jirtay imtixaan ama wuxuu ahaa mid loo bandhigo diimo fara badan khaasadan diinta Kirishtaanka qoys iyo qofba in badan waxa soo maray in ay u yimaadeen niman ku socda baaskiilo guryaha ku soo garaaco iyo niman Bible la wareegayo iyo dad Christianity ugu yeerayo khaas ahaan markay dadku cusub yihiin taas oo aniga laf ahaantayda waa aan maktabad islaami ah ku lahaa magaalada aan joogo dhexdeeda igu yimid nin kaniisad ka socdo xilli dheerna xiriir ila lahaa kaas oo aan isweydaarsan jirnay kutub iyo waliba cajalado kutubta aan ka helayna waxa kamid ahaa oo uu siiyay kaas waa Bible-ka oo English iyo Carabi isku tarjumay waxa kadibna waxa dhacday in uu ii keeno hadana kan oo luqadda Soomaaliga ku qoran dhammaan waxay ku tusinaysaa nimankaas in ay wadaan dadaal ay kaniisadahooda wax amiray waayay ay ku soo amiraan waxaan jeclahay in aan jawaab 3 qaybood ah ugu gudbiyo Soomaalida soo gudbisay Christianity-ga ay qaateen sababka aan Bible-ka loo dhihi karayn waa hadalka Ilaah oo baraxla iyo in uu dhacay ama expire yahay Christianity-ga iyo Yahuudnimada waa laba diinood oo ka horeeyay Islaamka markuu Islaamka yimidna way dhaceen oo waa expire loona baahno in maanta laga wareegto iyaga dib loogu noqdo Ilaahu ciribteena ha nagu celin taayada waxa uu daliil ah kutubtooda waa kitaabka la yiraahdo Bible-ku wuxuu ka kooban yahay sida ay leeyihiin Injiil iyo Tawraad oo la isku daray Tawraad bay ula jeedaan Old Testament New Testament waxay ula jeedaan Injiil labadooduba Bible-ka ayuu ku wada yaalaa sida ay leeyihiin midka koowaad wuxuu ka kooban yahay 39 buug oo la isku daray oo Tawraada midka labaadna wuxuu ka kooban yahay 66 buug ama 66 buug oo la isku jeeyay way ma aha hal kitaab oo kale sida Qur'aanka
baybalku waa kitaab lagu falcaaday waxaana ku qoran hadallo iyo warimo iska hor iyo daba imanayo waxaana loogu gafay Allah subhanahu wa ta'ala nabiyadii Ciisa calayhi salaamna xadkiisiiba lagu dhaafiyay Allah waxa lagu yiri saddex ilaah buu mid ka yahay sida ku qoran baybalka meeshan daliilka ay u daliishanayaan saddex ilaah Korintios ka 2:16-19 haddaba taga oo quruumaha oo dhan xer ka dhiga oo ku baatisa magaca aabaha iyo wiilka iyo ruuxa quduuska markale iyo daliilka saddex ilaah Matthew 3:14 qormada ah nicmada rabbi ciise masiix iyo jacaylka ilaah iyo wehelnimada ruuxa quduuska ah kulligiin hayna la jireen sidoo kale ciise calayhi salaam ilaahnimadii ayaa la wada siiyay sida ku taal meeshan alla weyne in ay u qabaan ciise calayhi salaam kristaanku waxa uu daliil ah oo kale Butros ama Peter 3 amaanu ha u ahaato allaha ah aabaha rabbigeena ciise masiix halkana waxa ku qoran in ciise calayhi salaam yahay wiilkii ilaahay sida ku qoran Matthew ama Matthayos 4:15 cutubka afraad qormada 15 ku alla kii qirta inuu ciise yahay wiilka ilaahaba ku sii jira isaguna wuu ku sii jiraa ilaah daliilka mar kale iyo wiilka ilaahay inuu ciise yahay ay ku qoreen Yohanna 3:16 ciise goortii la baabtisay ayuu markiiba biyaha kor uga baxay kolkaasa samooyinku furmeen oo wuxuu arkay ruuxa ilaah oo sida qoolay oo kale u soo degaya oo dushiisa imanaya oo cadeer baa samooyinka kala haa kan waa wiilkayga aan jecelahay oo aan ku faraxsanahay waxaase taas ka soo horjeeda in uu sida aadanaha baahi aan dhammaan leeyahay Genesis ama bilowgii cutubka 18 waxa ku taal in Ibrahim rabbigii uu cunno iyo cagadhaq siiyay rabbina uu cunay Ibrahim oo ag taagan Genesis ama bilowgii 18 oo rabbiga u muuqday isaga oo jooga dhirtii maarmaare sayidkaygiyow hadaad raali iga tahay hay dhaafin anigoo adoonkaaga ah biyo yar hala idin keeno oo cagamaydha u sii socday qoraal kolkaasuu u qaaday subag iyo caano iyo dibigii uu diyaariyay oo hortoodu dhigay isna dhinacoodu istaagay geedkii hoostiisii iyana way cuneen magacaygu waa Cabdixakiin Maxamed waxaan deganahay wadanka Finland sida uu noo sheegayana rabbigii jannada asaga ayaaba ku jira kuna faraxsan sidoo kale badbaadiyihiisa Ciise Masiix rabbiga jannada ku jira mar kalena waxa ku taal in Ciise calayhi salaam adoon alla u ahaa oo habeeno idil tuugay sida ka muuqata Luke ama Lucas 6:12 maalmahaas waxa dhacay inuu buurta u baxay inuu tukado habeenkii oo dhan wuxuu waday inuu ilaah u tukado mar kalena sida ku taal Matthew ama Mathayo cutubka 27:46 abaaraha saacadii 9 Ciise ayaa cod weyn ku dhawaaqay oo yiri ali lama sabaqtani waxa weeye ilaahayow maxaad ii dayrisay sida baybalka ku taal meel kalena rabbigood Allah subhanahu wa ta'ala buu dhinaca midiga ka fadhiya sidaad ku aragtaan Marcos ama Mark 9:10 haddaba rabbi Ciise goortuu la hadlay dabadeed ayaa samada loo qaaday wuxuuna fadhiistay Allah midigtiisa dhanka kalena waxa aflagaado fool xun loogu qoray ambiyo tiro badan nabiyada lagu aflagaadeeyayna waxa kamid ah kow nabiyullaahi Lut bilowgii ama Genesis 9:33 oo habeenkaasay aabahood khamri siiyeen oo tii curadda ahayd baa u tagtay oo la jiifsatay aabaheed mana uu ogeyn marka ay la jiifsatay iyo markay ka kacday toona oo waxay noqotay in maalintii dambe ay tii curadda ahayd ku tiri tii yaray bal eeg xalayto aabahay baan la jiifsaday uu sii socday qoraalkii wuxuu yiri oo haddana habeenkaasay aabahood khamri cad siiyeen oo tii yarayd baa kacday oo aabaheed la mana uusan ogeyn markay la jiifsatay iyo markay ka kacday toona oo sidaasay Lut labadiisii gabdhood aabahood uurka ugu lahaayeen laba nabiyullaahi Daawud sida ku taal Samuel ka 2 cutubka 11 qormada 12 oo maghribkii ayaa Daawud ka kacay sariirtiisii oo wuxuu dul socday gurigii boqorka saqafkiisii oo wuxuu saqafka ka arkay naag maydhanaysa oo aad u qurxoonayd oo waxa la yiri warsow tanu ma aha Batsheeba ina Ilecaam oo uu
uuriyaah kii reer xeed qabo markaasaa daa'uud wareegayaal u diray wuuna soo kaxaystay markaasay u soo gashay wuuna la seexday ciyaadan billaah wasii socda qoraalkii wuxuu yidhi oo naagtii way uuraysatay markaasay daa'uud u soo cidirtay oo u sheegtay waxayna ku tiri uur baan leeyahay marka qoraalkii waa sii socda wuxuu leeyahay ninkeedii uu dagaal u diray si loo dilo wuxuuna yidhi warbixintii baa marka la siinayaa oo waa kan 24 markaasay kuwii wax toogan jiray addoommadaadii derbiga ka soo toogteen oo boqorow addoommadaadiina qaar baa dhintay oo addoonkaagii uuriyaah ahaa ee reer xeed isna wuu dhintay waa sii socda qoraalkii 26 oo uuriyaah bilcaantiisiina markay maqashay in ninkeedii uuriyaah dhintay way u barooratay ninkeedii oo markii baroortii dhammaatay ayaa daa'uud u soo cidiray iyadii oo gurigiisii soo gashaday oo iyana waxay noqotay naagtiisii wiilna way u dhashay laakiinse wixii daa'uud sameeyey ayaa rabbigu ka xumaaday 3 iyo nabiyullaahi sulaymaan sida ku taal kingiska ama boqorradii koowaad cutubka 11 oo boqor sulaymaan wuxuu jeclaaday naaga badan oo qalaad kuwii rabbigu reer bani israa'iil ku yidhi idinku ha dhex gelina waayo hubaal qalbiyadiina waxay u jeedinayaan xagga ilaahyadooda oo sulaymaan kuwaasuu caashaq u qaaday oo wuxuu lahaa 700 oo naagood oo marwooyin ah iyo 300 oo naagood oo addoommo ah oo naagihiisiina qalbigiisii way sii jeediyeen oo markii sulaymaan gaboobay ayaa naagihiisii qalbigiisii u jeediyeen ilaahyo kale xaggood sulaymaan wuxuu raacay Ashrood oo ahayd ilaahyadii reer Sidon iyo Milkom oo ahaa karaahiyadii ay reer Amoon caabudi jireen qormadu way sii socotay waxay tiri sulaymaan wuxuu meel sare uga dhisay buurtii Yerusalem ku hortiil koomeeshyadii reer Amoon oo sidaasuu uga wada sameeyay naagihiisii qalaadaa oo dhan kuwaasoo uunsi u shidi jiray alla barina u bixin jiray ilaahyadooda oo rabbigu sulaymaan uu u cadhow marka maxaad ka sugaysaa in nabiyo ilaahay iyo alla subxaanahu wa tacaala loogu gafo kadib maxaad ka sugaysaa haddii intaasoo idin marka aad aragteen waxa kuu soo baxayo inuu Bible-ku yahay kitaab la gacmeeyey oo la haleeyay oo lagu falaaday inuu yahay sidaasayna alla subxaanahu wa tacaala ugu doortay nabiyullaahi Muhammad inuu yahay mid ka saxo sidaasa ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu doortay kitaabka quraanka inuu ahaado mid ay ku jamacsan yihiin dhammaan wax alla wixii ku qornaa haddii ool mid ahaa midna new ahaa kaanagu waa laastiga soo koobayo wax walba sidoo kale waxaa cidla ah kaniisadihii waana midda sababtay in kaniisado badan masaajid loo rogo dhismahan waa kaniisad hore waxaana loo bedelay masjid kaniisada tan hadeer waxa ka dambeeyay insha Allah taala waa masaajid waa magaalada Chicago ilaa 500,000 ayay kharash garaynaysaa oo qiimaha lagu gadan yahay looyarkii heshiiska kala qorayay wuxuu ku yiri imaam Faysal hadaadna gurigan xaqiisa siin doonin ha gadanina sababna wuxuu uga dhigay in aan lagu cibaadeysan laga soo bilaabo 1983 waxa uu kasta masaajidii waxa ka buuxo dad kaniisadihii ka soo cararay ayaa masaajidii soo buuxinaya sidoo kale si lamid ah markii kaniisadihii faaruq noqdeen ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu gacanta muslimiinta makansiiyey in kaniisadahooda dib loo gado quraanka iyo sida uu u cadeeyay kristaanka diin la'aantooda iyo gaalnimadooda in aad gaalo ilaahay subxaanahu wa tacaala ka furtay tihiin kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala quraanka wuxuu noogu sheegay kow Allah subxaanahu wa tacaala waxa uu yiri asaga oo noo cadeynhayo sababta ay gaalada ku noqdeen ahlu kitaabka kow mar in ay mushrikiin yihiin sida Allah subxaanahu wa tacaala Ciise calayhi salaam iyo Holy Ghost waxay ku sheegaan in ay wadaajiyeen oo ay yiraahdeen saddex ayuu mid ka yahay taas oo Allah subxaanahu wa tacaala yiri laqad kafara alladina qaaluu inna Allaha thalithu thalatha way gaaloween kuwii yiri Allah subxaanahu wa tacaala saddex ayuu mid ka yahay laba marka xigana Ciise calayhi salaam ayay yiraahdeen waa rabbi ama Allah kuwa Ciise yiri waa ilaahay laqad kafara alladina qaaluu inna Allaha huwa al-masih ibn maryam way gaaloobeen kuwii yiri Ciise oo ina maryam ahaa waa ilaahay saddex iyo Ciise calayhi salaam inay wiilkii alle ka yeeleen تصدحان الله سبحانه وتعالى وحي عدي إنه سن الله سبحانه وتعالى وين لهين وين لدلين المرء وصل لهين بل أدون كارون دان الله سبحانه وتعالى السبب أوليه هاي هستيسنا أي أوي ماد أدون كوردن ونبهنين إنه ويل قوني ويساميستو أما علم وقالوا وحي هذين
اتخذ الله ولدا الله ويل سمايستي عيسى ولا جيداني وحوي الله سبحانه وتعالى في جوابي سبحانه الله عيب أو دم كل زهن أن يكون له ولد إن ويل لا تلمام والله شيء سورة الإخلاص أن الله سبحانه وتعالى وحكيري قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله وكليس الله سبحانه وتعالى ومتك وحلول قصده الله سبحانه وتعالى وحمد دالين لمن دالين وحسق لمد أهنا مج حلقة أن شوقنو إيو ديمها مد وقفع في الدبضان أما لو قاعد الشد بدن يحي حداد كفرسين الله نكفرتين سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى بوسكينا بلن بو ku qaaday in uu soo buuxinayo bal in ka badan idinka kana wanaagsan idinkana fiican idinkana taqwa badan idinkana cilmi roon inuu keenayo taasna waxa dhab ah oo Allah subhanahu wa ta'ala naga tusiyay xaaladda aan ku jirno iyo waaqicaan hadda marayno marka aad u fiirsato waaqica ama waxa xilligan dhacaya ee ku saabsan diimaha diin la'aanta iyo akhlaaqda intaba waxa ku cadaanaya in ay diinta islaamku tahay midda ugu faafidda badan caalamka sidaan arkayno markaan ku garaacnay Google-kii intaan waxa noo soo baxay maxsuulkii waxa noo soo baxay sidan su'aal ayadoo ah muslimiintu maxay u yihiin diinta ugu fiditaanka badan caalamka sidii labaadna waxa weeyaan CNN baa qoray fastest growing religion in the world diinta caalamka ugu fidita waa ka masaajidkii xaramka ahaa baa ku sawiran ayadaa qaaday way macnuhu hoos soo soco marka waatan halkaan ku cadeynaya oo wuxuu leeyahay islaamku waa diinta ugu fiditaanka badan caalamka waxayna ka boodi doontaa ama ka kori doontaa 1.6 bilyan oo hadda joogto 2010 markaas la sameeyay iyo waxayna aadi doontaa 2.76 bilyan markii la gaaro sanadka 2050 sida laga soo xigtay Pew Study goorta ay muslimku marka ayada ay yihiin buu yiri adduunka 3 meelood oo meel adduunka dadka xilligaasna wuxuu noqon doonaa buu yiri 9 bilyan oo qof arintan waxa sameeynayo waa Pew Research nimanka la yiraahdo ma study waxaana soo xiganayo sida muuqato waa CNN waxa arintaas iyada ah sheegayo Pew ayadoo laga dhigay su'aalna Pew Research Center Fact Tank baa iyaguna su'aal ka dhigay sida muuqato waxay leeyihiin muslimku ama muslimiintu maxay u noqdeen diinta ugu fiditaanka badan caalamka ashhadu alla ilaha illa allah ashhadu an la ilaha إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله dhanka kale kumanaan ayaa maalin la arko soo muslima tuulooyin iyo xaafado ama boqolaal baa hal mar ah shahaadateynka loo qabtaa iyadii oo aan hub iyo hanti toona la adeegsanayn sidoo kale diinta kirishtaanka dad magac iyo maqaamba ku lahaa ayaa soo muslimayo dabadeedna ducaa dadka diinta islaamka ugu yeerto ayay noqdaan haddaba qowlkii ilaahay baa idinku cadaaday ee ahaa wa in tatawallow yastabdil qawman ghayrakum thumma laa yakunuu amthalakum haddaad jeesataan ood gaalowdaan qolo adinka aan idinla mid ahayn baa alla subxaanahu wa tacaala idinku bedelayaa waxaa kale oo iska hor imaanayo sida ay kooxdan sheeganayaan iyo sida uu baybalku farayo sida ku taal Korintiyoska 1 cutubka 11 qormada 5 oo naakasta oo tukata ama wax sii sheegta iyadoo aan gamba saarnayn madaxeeday ceebaysaa waayo waxay la mid tahay sidii iyadoo madax xiiran naag haddaanay gamba saarnayn timaha ha loo jaro laakiin hadday ceeb ku tahay naagta in loo jaro ama in loo xiiro ha gamba saarato saas oo tahay diimaha samaawiga ah akhlaaqda si isku mid ah baa loo faray oo tusaale ahaan kuwan waa yahuud haweenkaana waa kuwa kaniisadaha ee soorooyinka loo yaqaan kuwaanse waxaad moodaa in la yiri akhlaaq xuma islaamka lagula diriraa ee isa soo qaawiya I bear witness I testify there is nothing worthy of worship there is no other God except Allah and I bear witness and I testify that Muhammad is the final prophet of Allah. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar.
Allahu Akbar, MashaAllah. You have just accepted Islam. sida kale waxa la yaab ah ruuxa marka uu soo muslimayo raxmad iyo hilow diinta uu u qabo ayuu la ilmeeyaa kuwanse diintooda waxay muujinayaan iyaga oo qoslaya oo jeesjeesaya tay ka tageenna kuma toosnayn midda ay qaateen aqoon uma laha haddaba kristaan kasta ee aad aragtaba laba su'aalood weydii kow haddii ciise alla yahay subxaanahu wa tacaala maryama calayhi salaam yay uurka ku qaaday laba haddii ciise calayhi salaam isku tallaabta ama karooska lagu dilay 3 habeen iyo 3 maalmood uu meyd ahaa waa sida iyagu qabaan adduunkan yaa u rabbi ahaa oo maamulayay muddadaas dabcan wuxuu kuugu jawaabi doonaa adigoo iimaan yeelo qalbigaagana fur su'aalahana jooji ogow oo wuxuu kula rabaa in uu maskaxda kaa qufulo oo sidan oo kale beenta aad ugu camirto dabadeedna uu xoolo kaa yeesho oo uu cawska ku daajiyo ciyaadan billah wake up stand up stand up upright attention close your mouth eat quickly الله سبحانه وتعالى وما باحنا صبح يقلب إن لو هيسو شمل إن لو تمو لو علاصو وما باحنا عياذا بالله إلهي ما كما قنقلني وحا أنه ويريسان وحان إذن الله النحي الله سبحانه وتعالى هنون كيسو إيو إنا توهن انتان ويفرنتحي سيدا إيدين أصول نغطي أو كالي وأصول نغن كرتان أستغفر الله وأتوب إليه هدي أفكي إلهي كيناني إلهي بان أصول نقضي أطوبت كيني أسجودي سبحان الله إلهي سبحانه وتعالى وحي خلط أفكي كدعين أسان كرجيني إنو يعفيو وقبيستي وكأشهاتي وكتوكدي نحدنتي أن كنحي إلا إيشالي إلا إيمانت ما أن بردين saadaradeed ayaan walaalahay iyo dadkayga iyo muslimiinta iyo intii taqaanaba u sheegaya inaanan ahayn qof masiixiyeed فماذا بعد الحق إلا الضلال أيان إذن الله نحي waxaan loogu yeeraysaan marka waa baadi waxaan loogu yeeraysaan waa kaniisada faaruq ah waxaan loogu yeeraysaan waa dad iyagiiba ka tagay diintooda ayaad idinka booskooda buuxinaysaan ismana ogidin laakiin waxaan idin leenahay diintaan xaq weeye alla xaqiisa ka timid uma baahna cid inay propaganda ku soo weerarto afkiinana ku baabi'i mayso ikhwaani fillah page-ka daacishow ku soo xirma oo like saara page-keena Facebook sidoo kale YouTube-ka channel-ka aan ku leenahay ee daaci s fadlan waxaad siisaa subscribe Allah subhanahu wa ta'ala kuwa xaq fahmo xaqnimadoosan oo raac Allah naga yeelo ilaahi subhanahu wa ta'ala naga ma yeelo kuwa baadiyo ummadana baadi كدغو اللهم اجعلنا هداة مهتدين ولا تجعلنا ضالين ولا مضلين صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين